سوغيني كما هريرا نارتي لقى السلامة دياشي صوم رمضان وفيشا سوغيني كما هريرا نارتي لقى السلامة دياشي صوم رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري واتاي dhageystayaal wali waxaynu bartanka kaga jiraa barnaamijyadii ay raadiyo xuriyo galabta oo jumcaha idinku tala gashay taniyo intii ay isdhiibeen xubnihii ka soo haray ururkii Itixaad waxay ciidanka qalabka sida ay xoreynta ogaadeen iyo laba jibaareen weerarada ay ku qaadaan saldhigyada iyo dhufaysyada ciidamada gumaysiga Itoobiya dhanka kale waxaa tii laba jibaarmay dhibaatooyinka uu gumaysigu ku hayo dadka rayidka wariye jaamac dheere ayaa weydiiyay xaaladda jigjiga xarooshihii Itixaad kadib muwaadin jooga jigjiga oo magaciisa ku soo gaabiyay Cabdullaahi arrimo la xiriira amnigiisa wuxuuna ku jawaabay Cabdullaahi aad baa u mahadsan tahay xaaladda jigjiga waa xaalad kacsan weeye xaalad degan ma aha shacabka dhammaantiina waa iska kacsan yahay magaaladu mataqaanaa ee magaalada amnigiisa ama kalsooni haysata ma aha xaaladu xaalad aad u kacsan oo hadda aan la dhihi karin mataqaanaa xaalad aad u xun baa magaalada jigjiga ka jirta maxaa ku soo kordhay oo kiciyay xaaladda magaalada jigjiga adiga oo si kooban u sheegaya nooga warbixin waxaa ku soo kordhay oo jirta maalmooyin doon idaacadaha BBC inshallah waad ka maqlayseen in ciidamadii Itixaadka ahaa oo la sheegayay oo BBC ka maqlayseen dadku aad u dhibtoonayeen laakiin magaalada jigjiga xaqiiqadii laga ogyahay oo tira ugu badnaan 40 ah wartayna niyo booliska lagu daray dadkiina si cadownimo oo dhaqmo haya ku soo kordhay marka dadkiina kalsooni la'aan iyo argagax taasaa ugu filaatay waxaa jiray maalmahan dagaalo fara badan oo wadanka ogaadeynaya ka dhacayay sida gobolka jigjiga ee aad ku sugan tihiin iyo gobolada kale ogaadeynaya marka maxaad warbixin naga siin kartaa dagaaladaasi nolol aad u jirta xaaladaas waxaan ognahay magaalooyinka hadda ogaadeynaya ee joogna waxay ku soo kordheen dagaaladii oo maalmahan aad uga socdaan degmooyinkii iyo goboladii hadda dowladda habeenkii taariikh 9 ay ahayd xagga anagu magaalooyinka iyo degmooyinka lagama seexanin sida magaalada Wardheer, Dhagaxbuur, Fiiq, Dhanaan iyo Goday magaalooyinkaas oo ila Shilaabo magaalooyinkaas oo dhan baa lagu habeenkaas oo dhan xabadii ka socotay sida Shilaabo oo kale hadda warkeeda aan dadka socotada ka maqlayno in aad loogu waay ugu yaraan 25 maar ku baqtay oo meel shaleema daawan haya daawacuna aad u fara badan yahay waliba daawac xoogiisa la keenay magaalada hadda jigjiga kala hadlayo magaalada Dhanaan oo kale laga guri lagu gubay oo sida sheegay dadka socotada ay sheegayaan laga guri oo joogay ay ku basbeeleen marka magaalooyinkii ay dagaaladu ka galeen ay noo muuqdaan nagama dheero marka magaalooyinkii hadda dagaaladii ku soo urursadeen dagaaladii iyada u dambeeyay ee ka dhacay duleedka iyo agagaarka magaalada Dhagaxbuur iyo weliba gudaha magaalada iyadoo warbixin ma ka hesheen oo ma kala socotaan wax magaalada Dhagaxbuur waxaa jirta habeenno dhaweyd oo habeenkii 3 ahayd taariikhda ahayd iyo habeenkii 2 ahayd habeenkii kale iyadan taariikh 29 bishii hore ahayd habeenadaas oo dhan ilaa afar habeen isku dhow bay gelitaan ahayd oo habeenadaas aad bay habeenada Dhagaxbuur mataqaanaa yeelay xabadii ka socotay habeenkii taariikhda 2 ahayd bishii 8aad warbixin aan ka helo oo dad ka yimid oo mataqaanaa wareysi ka yeeshay waxaa la sheegay ilaa 15 inay ku dhintay ilaa 25 ay ku dhaawacantay iyadoo weliba si degdeg oo emergency 10 xagga anaga loogu soo qaaday dhaawacooda la keenay isbitaalada hadda aan joogno magaalada jigjiga habeenada kalena waa dadkii u diiday inay ka dhawaadaan oo ayada warbixin fiican kama lahayn laakiin habeenka nin ka yimid wuxuu noo sheegay in habeenka aad u gooday waxaa la gaaray xitaa heer markii dambe ay gobol walba geyso laga gaari oo tiga oral iyo gaari kale oo mataqaanaa isu ah ay mataqaanaa magaalooyinkii ay u qaybiso oo cabsi daraadeed marka Dhagaxbuur habeenadaas oo dhan gelitaan bay iska ahayd
marka aad fiirisaan guud ahaan jawiga maalmahan maxaa isbedelay xaaladda guud ee marka wadanka maxaad ku qiyaasi kartaan isbedel intee la eg baa ka muuqda wallahi isbedel badan oo dadka mataqaana ay aada u rajageliyaa ka muuqda ciidamadii dumaysiga ahayd waxay keeneen heer mataqaana kalsooni la-aan ay ku dhacdo oo ay aamin waayaan xitaa kuwii new booliska ah iyo dabaqoodiga ay aamin waayaan taana waxaas leedahay waa kalsooni darro oo kolba oo colka warafka lagu day waa kolba si ku day weeye marka kalsooni darro aad moodo inay aada u malaalxun tahay oy aamini laadahay xitaa dabaqoodigii iyo new booliskeedii ayadiina ay si malaalxun tahay oo mataqaana rajo la-aan ay u muuqato dadka jooga magaalooyinka aad buu u dareemayaa dadkuna aad buu u faraxsan yahay waana mataqaana rajooyin badan baa lasoo gelgelahaya marka aad magaalada jigjiga joogtaan ee aad tihiin shacabkii reer ogaadeniya war intee la eg baad ka haysaan ciidamada xoreynta ogaadeniya ee ku sugan daafaha magaalada jigjiga aad baan uga warranaa si hoosaaint baan isku waraysaa socotooyinkaa ka warranta markay warar badan baanu ka haynaayo wax kaloo hadda mataqaana hadda xog ka haynaa ma jirta in baa hadda xog ka haynaa warar beena iyo propagandooyin waxaa jira ay faafiso warbaahinta gumaysiga marka ciidamada qalabka sida ee xoreynta ogaadeniya haddaad tihiin shacabkii reer ogaadeniya say idinla dhaqmaan waa waxaan waxba ka jirin ciidamada sinada waddanka xoreynta ogaadeniya waa dadkoodii la joogo weye xitaa waktiga inta daaya ilmaha yarkay laba jirka ah markay kusoo baxaan farxad iyo reynreyn buu mataqaana iyo dareemhayaa waa laga wada hor ordahayaa yar iyo waayeel baa loo taageersan yahay waa lagu wada faraxsan yahay iyagana sidii dadkoodii ula dhaqmaan waa dad mataqaana kalsooni badan laga haysto waa dad aad loogu faraxsan yahay iyagana sidii mataqaana aabayowgood iyo wadalayood iyo dadka xornimada u raadinayeen dad kale ma aha dadkan oobay ula dhaqmayaan xitaa cidda dambi gasha mar gasha oo laba gasha ma dilaan dad wax iska sheegay inay wax iska sheegsheeg waa laga yaaba laakiin wax mataqaana hadda dadka ay si xun ula dhaqmayaan ma aan arag ana weli cabdullahi waxaad joogtaa magaalada jigjiga dadka reer ogaadeniya ee qurbaha jooga ee ay kooxaha dabaqoodiga doolka ah iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee wayaanuhu ay ku jahawareerinayaan urur baa isdhiibay iyo waxaa laleeyahay maxaad u sheegi lahayd iyaga qoladii hore itixaadka hore dadka itixaad uu dhaho itixaadkaan dhihi jiray baaba xagga annaga laga yar dareemay oo la yar ogyahay intaasoo wax badan aan ka imaanin 20 nin oo qaanbeeya ilaa 20 kaloo dhalinyaro ah laga jirin laakiin wax oonada soo xarootay weli maana arag waxaa la isweydiiyaa markay b b c du ka hadasho oonasa kale la sheegayo b b c d iyo mel kaasina wuxuu ahaa dhegaystayaal cabdullaahi oo ku sugan magaalada jigjiga oo wariyaheena jaamac dheer uga warramayay xaaladda jigjiga xarooshihii itixaad kadib waraysiga ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddayadii galabta iyo barnaamijyadii ay idiinku tala galshay raadiyo xuriyo iyo kulanti dambe waa cabdinuur sheekh maxamed iyo bahda raadiyo xuriyo dhammaantoodba oo idinkaga tagay ramadaan kariim iyo nabadgelyo Laga rogi